Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xasan Cali Khayre saaxiibaday madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka ee Galmudug wufuudda la socotay madaxda meesha timid xildhibaanada labada aqal bulshada rayidka ah baada saxaafadda iyo dhammaan inta joogta waxaan rabaa inaan idinku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan is leeyahay caawa waa munaasabad aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh meel aad u qurux badan ku taalla aan rabo inaan marka hore u mahadceliyo reer Galmudug oo qof waliba uuna filaynin markii aan 2 maalmood gudahood ku nidhi waxaan rabnaa inaan dhuusamareeb isugu nimaadno madaxweyne Galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyo kulligoodna ay safar magaalada kaga maqnaayeen inay qaateen inay qaban karaan gogashaas oo shirka ay marti gelin karaan waxaan rabaa reer Galmudug inaan kulligood u mahadceliyo madaxweyne golo wasiiro baarlamaan iyo shacabba sida isxilqaan kale ee ay ku jirto dadnimadii lagu yaqaanay waayahan ka qasnayd ee dib ula soo noqdeen dadaalka ay muujiyeen iyo sida ay arrintaa u sameeyeen waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinka mahadceliyo waxaa abaalmarin ah inay mar labaad iyo mar saddexaad dhaco dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 ogaada waa isxilqaankii faraha badnaa waxa laydiin siiyey wayna ku dhismaan dowladaha iyo magaalooyinkuba midaana qaado waliba waxaan ku talinayaa martida aad guryaha seexinaysaan intaad ka daysaan waynu isnaqaanaa reer dhuusamareeb 2 habeen baad hotel ku dhisi kartaana hoteelo dhistoo dadka xoolaha kala hadha intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo isagu sabab u ah sida saaxiibaday sheegeen inuu shirkani noocan ugu qaybsamo in fact dulqaad iyo hogaamin uu muujiyeen ay ahayd in halkan la isugu yimaado shirkan uu ku qabsoomo madaxweyne waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay adiga ra'iisul wasaaraha iyo saaxiibada kale waxaa laga yaabaa dadku in badan markaan hadlayo aad bay u soo fiirinayaano waxay rabaan inaan wax kala sheego waxaa la gacan geel jire hoosa loo dhaqo hoos baan wax u dhaqnay marka waxaana weyn loo hagaagsantahay insha Allah taana sidaa loo qaato waayo haddii ta guud ay hagaagto waxaad ogaataa wax kastoo gaargaari meesha uu ka baxaya marka waxaan aad ugu faraxsanahay muddadii yareedeen joognay sida hooseen u wada hadalay iyo guud ahaan xaaladda guud ee waddanka aragtida laga wada qaatay waxaa jira waqtiga aan maanta ku jirno warmurtiyeedka waxaa ku filaa intii uu akhriyey ninkii akhriyay warmurtiyeedka Cabdinuur laakiin waqtigan waa naqaanaa waa waqtiga la kala fakado ee sifada lagu sheegay maalinta qiyaamaha oo kale ay ka dhacayso oo qof waliba uu dhinac u boodayo xildhibaanadana kuraasta aad bay u jecel yihiin meeshuu geli war looma yaqaano isdaba orod baa jira waa marka warka dadka beenta loo kala qaado waxaan ku raacsanahay saaxiibkay Siciid waraan bahasha ka wada shaqayno oo soo wada dhaweyno oo isla wada wadno oo aan garanno waddanka aan ku noolahay midka uu yahay sida uu ku badbaadi karo xaaladda uu ku jiro waxa lagaga bixi karo waxay tahay inaan isla qaadanaa asala qof waliba ha qaato aragtida ah waddankaani waa kuma xageen u soconnaa maxaan ku badbaadi karaa labada qof ka ugu yar haddaad isxumaataysataan dhibaatadu way soconaysaa waxaan rabaa in la iswada cafiyo kulli wanaag la isu wada faro haddaan maanta idhaahna maxaan isu qabnaa qof waliba qof kale waxaa laga yaabaa in wax sheegto laakiin waxaa ka horraysa inaan u wada turno haddii dadku ay caloosha wax isugu qabaan dhibaato badan baa waddanka gaaraysa in la iscafiyo lagana shaqeeyo midnimadaas waddanka iyo waddankeennu inuu gaadho ka baxo meeshuu hadda joogo uu tago meesha ugu dambaysa in gaadhayna haddii ilaahay idhaah taasina niyad furnaan isa saamixid iyo caloolfayoobi bay ku iman karaysaa waxaan intaa ku darayaa shirkani wuxuu ahaa in mar hore laysu yimaado waayo wax badanoo mar hore la qaban lahaaba hadda dib inoogu dhammaaday oo dib u dhacay isu imaatinka iyo in wax laysla falanqeeyo wax laysla fiirfiiriyaa waxay saldhig u tahay isfahanka wada shaqaynta wax isla garashada iyo horumarinta waddanka hore loo sii gelayay
madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo madaxda kale dowlad goboleedyada waxaan rabaa inay dhacdo habato wada hadalku habato wada socodku kulamadu habateen si dadku haddii la kala baado warkaan arkaynana dadka aad loogu kala qaado xumaan iyo wax badan baa soo baxaya marka in mar walba la isxog og yahay xogaa la isu yahay waxtar badan bay leedahay shirarkan oo kalena wax badan bay ummadda lafteeda ay u yihiin waxtar waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad idinkaga mahadcelinayaa kulligiin dadaalka halkan qof waliba soo xilqaamay baarlamaanka waxaan rabaa inaan u sheego waxaad garataan waddankaan joogno iyo mas-uuliyadda idin saaran iyo xaaladda jirta waxay ku fiican yahay waddankani kugusan in la yidhaahdo meesha aan hadda ka bilownana waa meel fiicanna waan gaadhsiin doonaa khayr badan baan idiin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi